sheekadu waxay inoo maraysay gabadhii ugu dambeyn taleefanka laga qabtay weliba ballantii ay dhigtayna loo ogolaaday in la kulmi doono. aad ay u faraxday iyadoo weliba ooynayso. hase haatee maalinkii xigay waa ay kulmeen subaxii, asagar kama qasneen ayadana way ooynaysay. konton maalin ka badan ayaan ku soo wacay, taleefankana way dhiga qaban weysay. maxaa dhacay ii sheeg? marka hore horta aniga waa mashquulsan, laakiin mashquulka waxaan kugu sheegay waa qalad, sababtoo labadeen wax naga dhaxaya ma lahan. wax walba oo dhexdeena marna sharad oo kaliya ay ahayn, aniga waan ku guuleystay sharadkaas, ma garatay? markaan guuleystay kadibna wax ka soo dhexdeena mar aniga waan baskiilooba, meesha ayaan ku ekeeyay. adigana waan ku baryaa iga daba har marka. wax ka sidaan u weliba oo kale adigana inaad dawlada ayaan u baahanahay. waad ifaantay Soomaa? gabar wanaagsan oo qurux badan ayaa tahay. qofku jeceladan oo teelaysta waan huba aniga, waan ku baryaa laakiin aniga leexo. jecel kale ayaan samaystay. isla markii ayadana waxay u sheegtay inay uur u leedahay asaga. ور wax aniga ay leeyahay yaaqay dhaxdeen wax maray malahan. sidan aniga marnaba ma ka filaynin yaaqay. hadda maxaa ku sameeyay ii sheeg? meel cid ayaan taaganahay waa kana. markaas asiga wuxuu ku fikirayay inuu iska dheereeyo. hasaate hadalka ay sheegtay in la maqlay in kala geesa ayuu iska fiirinayay. haddaba hadalkayga si fiican dhigis, urkan waxa sheegayso waa ku kaliya. maanta waxa dhexdeen imraayna aniga video ayaan ka duubay yaaqay. haddaba inaad aamusto ayaa ku roon, afkaagan iyo xira ayaan ku dhahay. hadda fiir video ku tusaaya waa kana. isla markii way yaabtay iyada toogma iyo baraa ay bilowday, laakiin asiga wax uma jiixin naasida ayaan ku dhahay. waxaan hadii laga maqlay dab waxaan ku sheegayaa video-gaga inaan qarxin doono. ay si kasta ay u hadlaysay, asagana kama uusan dhageysanaynin. tiisoo kaliya ayaa u cadeed. ugu dambeyn wuxuu u sheegay video qofkaas inuu tusi doono hadii hadal noocaas ah magaalada laga maqlo. si kasta u toogtay asagana ugu dambeyn uu ka dhaqaajiyay. oohin iyo murugo urku taalo oo kaliya ayaa ku soo hartay. habeenkii xigayna gabar kale ayuu la sheekaysanayay meel maqaayadaha ayayna fadhiyeen. weliba gabadhiisi xadaafka u jeclaa sheekada bilowgeedana meel cidlaha uga tagtay. tii kale way aragtay in cabaara ayay fikiraysay, kadibna waxay go'aansatay xaggooda inay soo aado. wareey dhageyso, qoftan yaa waa ii sheeg, qoftan waa jecelkay maxaa dhacay? horta maxaa soo baahan tahay ii sheeg? nasiida ayaan ku dhahay. kuleetigiisa ayay qabatay, asagana waa u dharbaaxay. murugtiisa mid kale ayaa u sii kortay, ayadoo ilmeynayso ayay meesha ka dhaqaajisay. wadadan iskama fiirine ugu dambeyn gaari ayaa ku dhacay, sidaas ayay ku sii waalatay. intii waanad magaalada wareegaysayna muddo ayaa ka soo wareegatay, uurkan wuu u sii weynaaday. muddo kadibna way foolatay, wayna iska dhashay. gabadheeduna way u weynaatay. hase haatee waddooyinkana ayada ayaa ka reebaysay maadaama gabadha yar aysan waalnayn. wax kastoo dhacayba xasuusta oo ka soo laabtay. ugu dambayna waabuu ku dul ooynayay, wuxuuna ku dhegnaa jilbaheeda. dhan kale wuxuu xaqiiqsaday gabadhan yariista ahna gabadhiisa in ay tahay. ugu dambeyn wuxuu go'aansaday gabadhiisa yariista iyo hooyadeedaba inuu xanaaneeyo, asigana gurigiisa u geysto. wax kastoo hore u sameeyeyna qamamo iyo shalaa ayuu ka taagan yahay. waad ku mahadsantahay daawashadaada. haddaad ku xubtahay sheekooyinka sax loofna fadlan follow soo dheh. mahadsanid.